كد دال والد كاسانو نارو قلين أدو جدنا ريض هيو كدو وحكو غفلا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كمركو كقول رمي النبي إبراهيم يا أبيه سدو لها اللي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا سيدو آبه أبرييه وناقا قلت الماما يقصدا قرآنك كسا أرورتبا سعد إنو قلت الماما يسا أنت المامنو أبا هريري يقصديسي سحا كسا أرورتي أبا هريرة وحولي هو يدبانو ياري جرو دين توقو ياري جري قالت بايهي markaan diinta ugu yeedhanayana nabigay wax ka sheegi jirtay isagu wuxuu leeyahay kaalayo islaamo diin buu ugu yeedhayaa iyana waxay ugu jawaabaysaa canaadnimo waxay ka qabto marka kan inay nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegto anoo ooyayaan haddana nabiga u tagaa buu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan idhaahdaa ilaahay rasuulkiisa iyo hooyaday baa diinta ugu yeedhay dabeetana wax xun oo adiga ku saabsan bay maqashiisa ilaahay ii bari buu abu hurayra leeyahay nebi maxamed إن إلهي هو يدي هارون يا إلهي ويدي نبي عليه الصلاة والسلام انتو قعما كرت أقول ربي بريبي وحليه اللهم اهدي أبي هريرة إلهي يو هانوني أبي هريرة هو يدي أنا قد دعادي النبي كفر أحسن بو يلبان دبو النقضة مركان قريقي كدوي البابكي أيي قشفت إذا مغشي هو يسنقدي بي مغشي قريونا الباب مالا هين وداه يرول اسكدوه markaasay ku tiri war halkaaga joog markaasaan maqlay buu yidhi biyaha sanqadhoodii biyo isku shubaysaa ilaahay ducadii nebi maxamed buu aqbalay oo way islaamtay oo dabeetana gaalnimadii bay ka maydhanaysaa abu hurayra intuu soo socday bay islaamtay markaasaan ay tidhi buu yidhi halkaaga joog kadib markii ay qubaysatay ay tidhi soo gal buu yidhi waxay igu tidhi yaa abaa hurayra ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh anigoo farxad haddana ooyayaan ku noqday buu yidhi nebiga markii hore isagoo ooyayo wixii nebiga laga sheegay iyo hooyadii gaalnimada haysatay ka ooyayuu yimi iminkana anoo ooyayaan nebiga ku noqday buu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan idhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo bushaarayso rabbi dacwadaadii waa aqbalay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ilaahay ammaanay oo khayr yidhi buu ayaan haddana abu hurayra wuxuu leeyahay waxaan ku idhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaad haddana ii baridaa anigiyo hooyadayba inay dadkana jeclaysiiyo addoomaha alle in ilaahayna jeclaysiiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam mar kaluu abu hurayre u duceeyey xadiidka saxiix muslim buu ku yaalaayay allahuma xabib cubaydaka haada yacni abu hurayra wa ummahu ilaa cibaadika almu'miniin waxabib ilayhim almu'miniin nabigu wuxuu ugu duceeyey ilaahu addoonkaaga kan addoonyarahaaga kan abaa hurayre ah isaga iyo hooyadiiba ilaahu ummaddana jeclaysiiyo iyaguna ay jeclaadaan أبا هريرة وإنك أركيو حديثك أبا هريرة لقوا يدتكم ما برهم إسنين بدني إذن وشعائل الله قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجود عي وحن لا نهي إلهي أبري دين غير راليهان شهود الرادي ووح أي كدم قدان هبيراته علماء واحد هذا حقوق الوالدين كمركي تعريفين أيان ووح وكهذا والدك أيوات شيخ تبين هذا أيا كان سأوجد بأن النبي وحولي عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد إلهي رأى لها شيس وحكوشرا والد كرى لها شيس عرض على نوحي كوشرتا عرض والد كباليش والد كهدت كعريسيسو وحيودو دينا ربي كعريسيسو سيدا أوجد وحو النبي التلمامي عليه الصلاة والسلام إنت كد داش أفر سوالي قابع عبادة بدنو صحيح مسلم كقصدي كلا كنت عليه جريج عن قوت المام نبي عليه الصلاة والسلام مركو شاقي سدح دي الموضة ضربتك وهضلي وحاو شاقي نين جريج الله يدهدين وشري أو عابدة أو مال أبحي كلي مالو كو عباديسته وقولوا انتو لستي طبقة يرى سرقلة وهلكا كلي كو عباديسته هو يدي بصوب وغطاو تمي دبتنا يسوقو صلاة حدن بوي أتميو يا جريج بيتري
أمي وصلاتي بيلي هوي إيه صلاة دبتنا صلاة دو إسكوات هوي وإسكوات نوات مالنا بعد بيتي سيدي سلك بو ويرد هذا أنا نكني وين عبادة وقاي هوي الصلاة بيلي صلاة الصلاة صلاة دولتي سيدي يوم ثلاثة دبتنا وين هبا عاد كذا مجرد إله وسبي يقوم الخطيب ku haba isaga iyo musaadka dumarka xunxun inay sarkaan waxa la yiraahdaa qisada meeshan waxa deganayd gabadh aad u qurux badan oo haddana dumarka xun ka tirsan dabeetana iyadoo Jurayj la amaanayo cibaadadiisa laga warramayo ay maqashay waxay tiri ka sheegaysaan bal aniga igu dhiga waxaan ku sameeyo anaa idin tusi doona dadka badhba shayaatiina oo xumaha jecel qof aan waxba u geysan bay waxay leedahay anaa xadhiga weydaarin doonay aniga igu sima way soo baxday Jurayj way soo bandhigtay laakiin ninkani cibaado u go'ay qowsaar ama dhoobisa u taqaaneen mid xoolo raaco meesha jooga ayay gabadhii soo dhigtay ilmay dhashay yaa dhalay baa la yidhi ilmahana waxay tidhi Jurayj baa dhalay Jurayj baa sawmacadiisii baa la dumiyey meeshii uu ku cibaadaysan jiray baa la yidhi tuuga xumeeyo intuu hablaha u weydaartaabo halkan wadaad iska dhigaya waxaa dhacday markaa wuxuu yidhi war bal ilmaha u yeedha ilmihii baa la keenay ilmihii buu gujiyey laba ragcadood buu tukado kadib intuu ilmihii gujiyo yidhi man abuk war aabbaha waayo ilmihii yaraa baa ilaahay ka hadiyey wuxuu yidhi waa qowsaarka gela adhiga raaca waa ninka xoolaha jira qisadani laba wax bay tilmaamaysaa kow waxay tilmaamaysaa cibaadada anfaceeda waxay kaloo tilmaamaysaa weligaaba cibaado badna waa haddii odag iyo islaantu wax kaaga tagaan inaad khatar ku sugan tahay waayo islaantaasi habaarkay habaartay waa la istusay isaga iyo wixii ay ku habaartay isagana markii dambe ilaahay wuxuu ku badbaadiyey oo ku karaameeyey cibaadadiisii tirada badnayd ee uu samaynayey asalna waxaabay culammadu leeyihin faradka loogama baxo laakiin adoo sunno ku jira haddii waalidku yeedho waxa waajib kugu ah inaad hee tidhaahdo waayo sunnuhu waa sunne waalidka inaad u jawaabtaana waa faral idan waa inaad ka baxdaa bay culammadu yidhaahdaan aad u jawaabtaa waalidka waxaynu tilmaamaynaa marka waalidka habaarkiisu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya axaadiista ka asaxday saddex baryo xagga alle lama celiyo waxaa ka mid ah dacwatulwaalid riwaayaadka qaarkoodna dacwatulwaalidi calaa waladih ayay tilmaamayaan habaarka uu habaaro waalid ilmihiisa wuu ku dhacaya siiba hooyooyinka waxaan leeyahay afkiinnu yuu habaarka baranin inkaari kugu dhacday iyo habaar baad qabtaad iyo waxa kan habaar buu qabi uun in badanoo Soomaali aanu taaglaana islaamaha ku yidhi habaar baad qabtaa habaarkii loogu duceeyey bay qabaan idan waxa fiican qofka muslimka ah isaguna inuu wax fiican ku hadlo inaanu erayada xun carabkiisa barin saa ogeed buu nebigu wuxuu leeyahay habaarka waalidku wuu dhacaa waxay leenahay waxaa ka mid ah waxyaabaha waalidka loogu samafalayo inaad asxaabtii waalidka isaga daaye cidduu la saaxiibkaa inaad xidhiidhiso haddaad ogtay cid aabbahaa ama hooyada ay ixtiraami jirto saaxiib ay la ahayd inaad xidhiidhiso cabdillaahi ibnu cumar iyo ardaygiisii cabdillaahi ibnu dinaar taabicigii la odhan jiray iyagoo xaramka yimoo ka noqday dhexda mulmaraya ayaa nin reer baadiyii ku soo baxay dabeetana ibnu cumar baa dameer uu fushanaana siiyey cumaamadiisiina u furay cabdillaahi ibnu dinaar baa wuxuu yidhi ibnu cumarow ninka kani waa reer baadiyuna wax yar bay ku qancaane haddaad cumaamadda siisay maxaa dameerka ugu dartay baa dameerkaaga iska fuushanaatay wuxuu ku yidhi ninka kana aabbihii ahlu wuddi cumar buu ahaa aabbahay saaxiibkii buu ahaa markaa aabbahay dadkuu jeclaaya saaxiibka la ahaa mar hadduu wiil kan dhalay saas baan ku xidhiidhinayaa buu tilmaamaya silatulwaalidi ahlu wuddu abii nebigaa yidhi inna abar albir sama waxa ugu fiican xidhiidhka uu waalidku xidhiidhiyo dadkii waalidkii jeclaayeen waalidka ama aabbaha ha noqdo ama hooyada ha noqdee intay xidhiidhin jireen inaad xidhiidhiso qaababka loogu samafalo waxaa ka mid ah inaad ilaahay baryadiisa u badisid
nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay camalka bini aadamku inuu go'o ilaa iyo 3 mooyaane 3daana waxaa ka mid ahaa waladin saalixin yadcu lahu wiil saalixa oo u soo duceeya bale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa jannada waalid ku jira ayaa darajadii uu lahaa kor looga qaadaa markaasuu yidhaahdaa annaa lihaada ilaahayow intan maan shaqaysana xaggay ka timi fayuqaalu biistigfaari waladika lak waa dembi dhaafku ilmahaa dhashay ilaahay uu kuu soo weydiinayay subxaanahu wa tacaala aabbaha hadduu nool yihiyo hooyada hadday nool yihiyo hadday dhinteenba ilaahay uu bari hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba ilaahay uu bari wixii aad cibaado u samayn kartana u sameeye sharcigu baneeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay gabadh baa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa iyo hooyaday jaariyad baan siiyey dabeetana way dhimatay jaariyaddii waa tan hadday igu soo noqotay maxaan sameeyaa waxay ka cabsatay in sadaqada laga aqbali waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi adiguna ajarkaagii waad heshay dhaxalkana ilaahay baa kuugu soo celiye qaado calaa kulli xaal waxay jeclayd inay xajta buu yidhi ka xaj waxaan ku soo koobayaa wixii cibaado sharcigu banneeyey taan sharcigu bannayn maaha wixii sharcigu banneeyey cibaadaana u samee وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين